Xildhibaanka Galbeedka Wajeer Yussuf Farah ayaa maanta booqasho ku tagay tuulada Shandarua oo hoos timaada deegaanka Hadhaadho ee Galbeedka Wajeer. Xildhibaanka ayaa halkaasi ka daahfuray mashruuc loogu talagalay xanaanaynta xoolaha sida lo'da iyo ariga, waxaana mashruucan uu diiradda saaraya siday bulshada uga faa'iidi lahaayeen hilibka iyo maqaarka xoolaha kadib markii ay heleen xanaanada ku habboon. Xildhibaan Yussuf ayaa sheegay in deegaan baarlamaaneedka Galbeedka Wajeer uu yahay kii labaad ee guud ahaan dalka oo laga hirgeliyo mashruucan, waxaana ka horreeyay oo kaliya deegaan baarlamaaneedka Bariga Tigania. Xildhibaanka iyo shacabka ugu baaqay inay barnaamijkan ka faa'iidaystaan. maanta waxaan joognaa meel dhahay Shandarua oo Hadhaadho ku taal. Hadhaadho waa sub county Wajeer West ka mid ah. Anigoo MPga Wajeer West maanta aad waxaan caawa ugu faraxsanahay inaan halkan u imaaday inaan launch gareyna project oo xoolaha lagu xanaaneeyo. Xoolaha lagu xanaaneeyna ay ka mid tahay lo'do, ay ka mid yihiin lo'do iyo xoolaha kale oo arigaba. Xoolaha la xanaaneeyna maxaa loo xanaaneeyna in xoolaha lagu la naaxiyo, la daaweeyo oo hilibkooda iyo maqaarkooda la gado oo dadka manfaacad ku soo daraan. shaqadan maanta halkan laga launch garay laba constituency kaliya Kenya laga launch garay sanadkan iyo inta ka horeysayba hal waa Tigania East iyo Wajeer West. waxay ku tusini dawladda hadda ku jirto sidii maaragtay ay u horumarinayso rabitaanka shacabka Wajeer West ee shacabka kala. waxaan ku faraxsanahay inaan noqdo ninka ugu horeeya oo MPga ugu horeeya oo ka faa'iida projectada noocaas. waxaana Farah dadka reer Wajeer West inay ka faa'iideystaan fursadan oo maaragtay markii la dhiso xoolaha iyo becsharada ay gacanta ku qabsadaan oo ka faa'iidaan wax Allah wixii ka imaaday arimaha ka soo baxa arimaha. waxa kaloon Farah contractaga shaqada loo dhiibay inaad shaqadiisa sidii la rabay ugu soo baxa. injineerkana waxaan leeyahay shaqada garab istaaga sidii looga tirigalay oo maaragtay bikigu ku taala oo in loo qabtay looga tirigalay in loo dhamaystiro. annama nasanaay ilaa ma shaqadaas la conclude garay si Allah sidii looga tirigalay loo hagaajiyo oo dadkii Wajeer West ugu faa'iidi karaan inta sano soo dhiman. Aware that this Kenya Kwanza government is a government of economic transformation path where we as a State Department of Livestock we have been given responsibility to ensure that we improve or we are indeed even committed as a government to fix the issue of dairy sector, the beef sector, and the leather sector. What are some of those challenges that we face in those three subsectors? Basically, is the issue of animal genetics and breeds, and the other challenges is the issue of fodder. And the other issue is basically that of animal disease control. One of the issues that as a government we are to fix the issue of our beef industry in our country is to establish 450 feedlots, one in each ward in the 31 arid and semi-arid areas. As a country, our current consumption demand for meat is 660,000 metric tons of meat against a production of 494,000 metric tons. So as a country, we have a deficit of 200,000 metric tons. And one of the issues that we'll use to ensure that we're able to meet the meat demand both in terms of our international livestock trade and also to satisfy our local consumption is basically that of the feedlots. So far in the country we have established two. One is in Chemagoch in Baringo County and the second one is in Tigania West, a place called Kibiru. And this one which we are today laying the foundation in Shandarua. And we expect this project to be over by the end of 30th June of this financial year. And we expect also to accomplish the remaining feedlots in the country
by the year 2027. The government is on course to ensure that we respond to our meat demand locally and also to export our animals. His Excellency the President has gone on trade diplomacy outside our country, and currently we have the market for our livestock, both for the cattle and for the small stock. Last time we are supposed to export, the Indonesian government has given us a quota of live animals, numbering 100,000 heads of cattle, but we are unable to reach that live weight of 350 kgs. This feedlot will be able to fix this issue of finishing and fattening our animals so that we're able to export both the live animals and also the prime cut in our country. inta halkan ka launch gareynayna magaalada Liiraha Shandaruwa waxaana loo launch gareynayaa a national feedlock taasoo loogu talagalay bulshada maaragtay deegaanka khaasatan Wajeer West dhamaan inay ka faa'iidaan loogu talagalay ayaa la launch gareynayaa ana hal shay baan ku soo koobay hadalkayda waxaan leeyahay bulshada ha ka faa'iideysteena fursadda maalin kasta maaragtay ma taagna waa wax la dareemi doono waqti xaadirkan lama dareemi doono waayo waxaan haysanaa roobaan haysanaa muhiimadii iyo wixii hadda la joogo ma dareemi karayno laakiin markii kuleylku yimaado xaalku adkaada waxa ogaan doontiin waxa hadda aasaaska joogo maaragtay bilowga joogo muhiimadda ay leedahay shacabku waxaan ku waaninayaa Wajeer West khaasatan reer Shandaruwa iyo dadka meesha area ka dhawaay in fursadan fursad muhiim ay tahay haddii maanta ay naga laabatana maaragtay mar dambe dib u helideeda ay adkaani doonto muhiimadda ay dawladana siisay oo maaragtay wadanka ka talisay oo labada constituency oo wadanka dhan laga siiyay in anaka aan koow ka ahnay oo midka labaad aan ahnay taas waxay ku tusinay muhiimadda maaragtay iyo dadaalkii la geliyay arrintaanayta marka dadaalkii mushimaaga uu soo muujiyay in maaragtay nagala siyaasadeynin fursadii aan ka faa'iideysana nagara carqadelaynin ayaan doonaynaa dadka ay fursadda ka faa'iideystaan dadkii sidoo walaalin hor u sheegeen dadkii shaqada la siina waxaan leenahay shaqo maaragtay dadweynaha dhultay anfici doonto maaragtay ku farxi doonaan faa'iido leh oo sidii loogu talagalay oo bikiuga loo raacay in ay kana ku dadaalaan